gobolkan waxaa la yiraahdaa Shrilang Pat run ahaantii dad aad u fara badan ayaa ku nool boqolaal sano ayay jirtaa marba wuxuu ka talin jiray Sultan Tipu nin la yiraahdo waxaa jiray dhaqan xeer sharci intaba balse markaas kadib Tipu markuu geeriyooday nin waxaa soo baxay Hari la yiraahdo iyo waliba nin Kesho la yiraahdo ayaga ayaa maalin walbo meesha fitna ka abuuri jireen gobolkan wuxuu leeyahay saldhig maxkamad talis intaba balse waxa soo dhan waxay hoos imaadaan Hari iyo Kesho ayaga ayaa dadka waxay doonaan ka sameystaa doqon yahow lacagta aan kuu sheegay haddii aad qaadan lahayd maanta horumar ayaad ku fadhin lahayd laakiin adiga hadda doqonkaas ayaad warkiisa qaadatay adaa doqon oo damiir lahayn war yacni janaalka waxaan u furtay shacabkeyga inaa ugu daneeyo kanaalkaas anigu waan burburin karaa ma ogtahay midaas maxaa burburin karti mala warya doqon aan damiir lahayna tahay warya daacadda oo noocaad oo kale ah mar walba waxay ku haminayaan inuu qof imaanayo xaqooda oo u dhicinayo taas waa riyo adiga aad ku riyootay waxaa kaloo kuu sii dheer doqon adiga mar walba waxaa jeceshaa in taariikhda ay ku xustay laakiin taariikhda kuma xusayso doqonnimo ayaad u dhimanaysaa adiga ugu wadaba dadka waxay yidhaahdeen qofka markuu xanuunsado digtoor ayaa la geeyaa qofkii kibirkiisa batana Hari ayaa loo geeyaa kanoo kalena dawadiisa aniga ayaa haayo wiilkayga kanoo kale looma baahna waqtigaaga inaad ku lumisid ee hooshaada cab ayaan ku leeyahay cab hoosha walaalkay aawe war waa la gacan galay weligeyga waxaan fiirsan jiray filmaanta waliba waxaan ka arki jiray hal qof oo 10 nin ay garaacayaan balse maanta indhahayga ayaan ku arkayaa yarkaaga toora iska dhigay adiga kuma soconay meesha ka carada ayaan ku dhihi lahaa ninkan intaad u gudbin aniga ayaa ku dhameynaayo maxaad dhamay kartaa adaaba 3 kiilo ee waryahoy maxaa naga qaadaysaa intaan kugu dhameeyna hadda halkaan ku dilana waana arki doontaa ma ogtahay waraabaha kan aamusan iyo kan qaylinaya kan aamusan inuu khatar yahay ninkaad ku tilmaantay inuu 3 kali yahay ayaa wuxuu soo dhamay kartayga buuggiisoo dhan
raganimo ma ahan 10 qofood inaad hal qof ku dishaan laakiin raganimada waxay ku jirtaa hal qof markuu 10 qof oo dilo kaligiisa waliba fulayga sidiisa buu ulal badan yahay laakiin usha qaadanaysa waa inay noqotaa mid waxtar leh oo waliba nin ruuxi kale la saaray gabadheeda aniga meesha mar walba waa jeclaa inaan ku duceysto laakiin nasiib waan ogaa markii aabaha la bedel ayaa nasiib u helay ka waran hee waxaa la dhahaa meeshaan qofka ku duceysto ducada waa laga aqbalaa mar run baana ii sheeg biyo وكتوبة كم بيان ورناك تكبر كل حتى انت طورب ارمونيو شيطان كان اسغا ما ودي مناي ميا مرba anaga waxaan barinaa in uu dhinto shaydaanka maxaa ku dhacay gabadheedan biyo bisi tartiib هلا كيشو يا أخي qofkan waa dhaawac wuxuu yaalaa bartamaha magaalada meesha laga dugaamistoon ku bari inta u imaataan isbitaal gee aad ayuu u dhaawacan yahay marka dhaqso ugu imaada idinka maxaa kugu dhacay wiilkayga walaalkaa wuu fiican yahay maxaa dhiig kolkaa ka muuqdo dadkii walaalkii soo garaacay ayaan anigana gacmaha ka soo gooyey walaal horta aniga nafsadeeda wiil ayaa badbaadiyey wiilka makoo i badbaadiyeyne gabar ayaa biyaha afka igu qabta gabadhaasaan doonayaa baaritaanka markuu dhammaado kadib 2 maalmood hoostaada ayaan keenayaa gabadhaas waxaan rabaa inaan guursado aniga wadna xanuun daawo waa loo heli karaa wiilkayga jiro kan haddii ay tahay xitaa daawo waa loo heli karaa macno ma lahan laakiin adigoo xaas leh inaan naa kala guursanin naagtaada maxaad ugu jawaabaysaa ii sheeg hadhow adiga ayay su-aal ku weydiinaysaa waatanaa maxaad leedahay markaas hadeer naag inaan guursado aniga yaa dacwo ii dood ka qabo gabadha walaalkay uu ku waashtay sida ugu dhaqsiya badan waa inaad ku keentaan aniga gabadha xaggeen ka raadinaa ciwaankeeda maba naqaanay war gabadha gaashaallaha baadhale baa la orinaya madane muxuu yahay hadduu dhalayna walaalkay ayaa jeclaaday runtii gabar waxaa la guursadaa marka adiga dhibaato ay ku haysto gabadha kuu naxariisato gabadhaana waa ay kuu naxariistay adiga inaad guursadna waad ku qasban tahay istaag guduudkaasida sooma jeedid sooma jeedid dadkoo dhan meesha way ka carareen ninkan weli wuu taagan yahay waa nin sharci yaqaan oo inaad sawirtaa facebooka rabaa inaad dhigtano mudane runtii markii ku soo laabaad shaqada aniga aad iyo aadaan ugu farxi waana mahadsan tahay yaqay adiga mudan mudane halkoo arrin kalaa jirtay ii sheeg runtii mudan aan howlgab markay noqdo dadaa garab iigu sii shaqada inaan ku soo laabto dadkaas inaa ii ogaatidaan u baahanay intaas taliye walaal harii kunkooy ku doonos walaal harii ah meeshan ma aha ee xafiiska igu sugo soo sheekaya waaye مدن هري نك مقالنا وخطر سواي هديس انت إمادة وين سوي ماذي وعن كل رأس كخابل وانكو سلامي مضاني
harii ninka la dhahaayo si wanaagsan ayuu ii ammaanay midaasna waa midaan aniga muteystay fadhiiso wiilkayga fadhiiso waaya waxay la tahay meel qaldan inaad imaadeen waa maxay waxaad la imaadeen ninkaan aad u jeedid adeerkiis ayaan ahay harii ayaa la dhahaa walaalkiis ka yar ayaa jira keeshu ayaa la dhahaa aad ayuu u qurux badan yahay yaraantiisa wuxuu jeclaa bisooladda inuu ku ciyaar hadda markii uu weynaaday bisooladii ayuuba ku tegayba gabadhaada ayuu jeclaaday waa inaan ku darnaa marka burcadnimadiisa ku faanaya lagama yaabo gabadheedii inaan ku daro waxaan ahay boolis ahaw ama wasiir ahaw waxaad ogataa mar haddii gacanteena ay qoortaada gaarto surwaalka aad ku kaadinaysaa taariikhda ayaana qoraysa midaas walaalkay gabadhaada mar la kulansii haddii uu dhididka keeni waaye isagaaba nin rag ahayn mar dambe kelmadaas afkaaga dee ka soo baxday uu xabad ayaan afkaga gelinaya wariya bistooladda adiga aad sheegaysid annagaba waan wadanaa ogow haddii ay taada kugu yaraatana annaga naga soo doono tanna adiga iska xaraysa ayaan ku leenahay markood qofka aniga wanaaga ugu imaana haddii uu diidana burcadnimadeen ayaan tusnaa taasna aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso gaashaalla adiga si fiican ayaad kaartada u jeli taqaanaa gabadhaada waad diidi kartaa micno ma lahan laakiin hadda hurdadiinna way wanaagsan tahay cuntadana si wanaagsan ayaad u cuntiin hadda waxba idinkama hadlaysna laakiin mid ogow gabadhaada haddii aad isku dayday in aad diido waxaa hubanti ah taariikhdaadoo dhan inaad u baasbaxayso dhegeysta dan walbood iga leedihiin xafiiska ayaad igugu imaanaysaan gurigayga dadku ma qaabilo waa markii ugu horraysood qalad gashaan waad yacafiyey ee ka taga guriga si fudud ayaa waxaa ku tidhi halkaan ka taga anaga ma baxeeno ilaa aan danteenna ka gaarno hadda wiilkeenna wuxuu rabaa adiga gabadhaasi sharafleed inuu ku guursado haddii aad diidid waxaad ogaataa gabadhada 7 ayuu la gelayaa kadib ayaa la guursanayaa taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso arrintaa waxaa naga xigtay inta walaalkay isbitaalka uu ka soo baxaayo mar hadduu walaalkay isbitaal ka soo baxo naag la'aan guriga ma tegaayo midaasna waa inaad maanka ku haysaa walaal hari dimaashidaa waa taasaa haye dimaashida mustaqbalka shoobinka waa inaan si fiican u soo adeegataa arooska ma rabna annaga inaan daahino waan dadejinaynaa nabad wiilkayga nabad haa walaalkayga gabar qurux badan ayaa dooratay adiga midii horena inaad disho waadba ku saxneedba nasiibkaaga waad ku guulaysata ayaan ku dhahay kuu gashay yaaway ninka aniga ninka markuu dhimiro adig biyaashiilis kaa saara inuu ku guursado kabaranaan ka sheekay ay waa maxay waxaan dhacaayana waa 3 awood boolis biskoolad iyo tuugo dadkaana waxay rabaan inay ku guursadaan aabbahana midaas ayuu diidan yahay oo dantiisa ma yaqaana asaga dadkaana afkiina la gala ma ahayn muxuu la galayaana marwa dadkan ujeedad naxariis baa ninkan adeerkiisa waa ku saxan yahay maxaa yeelay gabarteeda inay wateen seerawan qiyateen bacdeena waa dilayna ku dhahay naxariis ma u sameeyeen qoortay ka jarayna dadkan ujeedad weliba unuka boolis waa iska nahay iyan boolis unahayaan ku dhahay khalada ay galayaan bacdeen unuka meeshii loo inaan raali geliyo waa u tagayna iigan raali geliyeyna tasbid adegnimaya maanta inay suularta wax lagu ogaadaa markay badato xumaana cid wax noogu qaadi karta ma laha sababtaas saman ayaan wadanaa annaga mideeda kaleeta ayaga wax walba ha sameeyaano laakiin guusha annaga ayay noo dambaynaysaa in iidaada khayr u sheeg gabadhaydii gabdhaha run ahaantii hindii ku nool caadi ma ahanan ku dhahay weliba waxay u dhaqmayaan gabdhaha yurubka imaada camal ma waxay kula tahay hindii inay dambayso hindii way horumarsan tahay way imaadaan u malaynaa aniga nasiib badnayaa saakiyaa iga soo horbaxa nasiibkayga aad ayuu wanaagsan yahay gabadhan aad u qurxan ayaan arkay waa inaan ku dhegsadaa marka waa maasan tahay ku dhahay kale walaalkaysiiyo qofta aruusaya warkaal haddii la maqlin waa lagu ka jiya hadda baa kuu sheegay dignina kuu sheegay qofkan qof ka wanaagsan waa inaad daraysataan qoftan waxaa gursana keeshuu baay ee keeshuu baay isku taalay keeshuu muxuu yahay hal mar waa la kulma ayay ku ilaabaysaa fishaali cabuurka jeclaad soo midkaas ma hana aha أريا ولا لا وفوسي مجالك وخليك هذا درك خربت حينكم هذا أبيه وياك أردنا وين نقطع هذا يعجوز هذا أريا أقدم بهدات هذا تتوقع قفك قرك يسقط طوال لك أصبعها كالي ما حكى قلدنا قفك وين كود مثلا
naamu ala tamakan qoftan waad aad bay qurux badan tahay waryaa hooy ninkaas ma arkin oo qoftan usaa jecel aligu kabina afaareeda ka bax adeegkii sugaa sheegaysa xaggayga wuxuu ka yahay anug 3 jira gabar weyn oo 20 jira ma ka faal qaadi karo balse aniga waxaan ahay 20 jira gabadhan oo kalena waa dadka loogu talagal inay la wadaagaan nolosha aniga waxaan bala qaadi karaa gabadhan nolosheeda iyo mustaqbalka in aan dhisi karo aniga noloshan waxay macaan leedahay mataqaana markaad jecelkaaga naftaada halis aad u geliso anigana waxaan diyaar waa nafteeda inaan halis u geliyo dhib walbo qatar walbo gabadhan darteeda diyaar waxaan inaan u galo nolosha waxay macaan leedahay mataqaana markaad naftaada jecelkaada halis u geliso jecelkii ku qaadan maaha weligeed mid ay ilaabayso meel walba guurka ayaa laga sheegoyaa adiga nintaygu maxaad u guursanaysaana aniga amarkayga wuu ku dhacoyaa marka maxaa iskaga diidi waysana aniga maa diidi karahe qof walba mustaqbalkiisa asaga ayaa go'aan ka gaari kara adiga markana iska diiday ahayd aabbahaaba gaashaale tuugada maxaa qorta kuu geliyey taas waxay ogta adigoo dil toogasha lagugu xukumo adigaaba ogol iska dhima saaxiib mararka qaar waxaa la fiiriyaa duruufta meesha taalana waxay tahay dadkaas waa dad tuuga awoodna way sheeganaya sharciga gacantooda ayuu ku jira aabbihi waa daacad waan ogahay laakiin waxaan u diidanahay inay dhibaato soo gaarto anigana aqli ayaan isticmaalay sidaas ayaan oo aamusay marka ma fahantay aniga aabbihi aad ayaan uga naxaya yaaqib mid kale iska jeclaa oo la baxsano waaga ii fiicnaan leed haddii aan helayo nin aan ogoleen korkayga in la taabto oo geesi ah laakiin waxaan aaminsanahay maalin maalmaa ka mid a inaan helayo nin sidaas u fiican oo i jecel aniga aana ogoleen aniga in xaggayga loo soo dhaqaaqo gabdho akhbaar fiican ay dhihaya xalsad ma iskoolka jirto maya wiil cusub iskoolka kusoo biiri wiil cusub aryaa wiil cusub kusoo biiri iskuulka wiil cusub waryaa gabdha waxay ii sheegaan see loo ogolaan karaa gabdha iskool dhigtaan nin isku soo biiro nin meeshaan intaan joogo mamnuucay ka tahay adiga nin ma tiidliya macalin aniga nin waan ahay laakiin nimanka waxaan dheelahay nimankooda nin kale meeshaan imaadan aniga raali ma kana qaahay marba ininka ana idin leh ininkana ana ileedihiin oo kaale hadda waaba diidantiinmiya naag walbaan gabad inaan ka qabo waryaa hoy دورة دي خدمة موجود دورة هي دي خدمة موجود دم على خاذا دم كما كتجسد دم إيه ما دواشين وريا هوي إذا كان أهلك محلي لنا نكاس إيشك بدن كويتي وياي إيشك بدن كويتي سيئلة أنا قاعد أهلها سفر أنا ينهب الصين لها أو معلومة كبرينا ناقل العمل ولا كرت نقد أنا هذيك إيمان كان لاني قسيو ناقل لان مدولا كرتي يا كويري أنا توابا كسبي ماشا مركي كبعلو شحال المجال اللي وطقتها لكن أنا شحال كسان قول جوكسا نين ماركس وريانا على خبطوشي ياليو والدين دينا ماشا وحبرشا ني وصدينا نين مينا سودوي سيما نين دينا سودوي أنا اللي سودوي نين كان ما بسوق لاي ماشا صوبح على مانتينا معلم حدقا قشنو سانا ديقا خيلي سانتيدو يا واتقرب بلانتها معلم والي ودالي أنقو داي صوبح كان نين ما أقل إيمانك على قادم قدامي يا كوسي 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 قدامي كوسي قدامي يا كوسي داني منو محلقة لنا سانا محلقة لنا سانا محلي هذا كولج كان عن الله منك وشرعي هروال بدلي شرع عصبة يا كولج كلوسني مسكا غيلنا ساعديك مو أنت مواني اي وحاي وحيسا مامولا نفتركت مامولا نفتركت maxaa ku daarin ood la qayb maxaa ku daarin ood qaylinaysaa ay leedahay meeshaan nin ay imaadi nin sas ku soo geli karaa nin aan ani ahayn xasan jilico muu ogola idinkana waa imaanaysid dadkaan aan soo wati mujada anigay taageeri yihiin ballan waayaan ku dhahay waayahay adiga dadkan kugu raacsan dadka waa igu raacsan yihiin exusrana ay igu raacsan shaqaalaha iyo madaxda dhan ay raacsan yihiin aniga gadaasheeda fiiriha loo joogaa mujeedid miya aawa hadda waxaad aabiga gadaasheeda mala jooga miya ya مليسيبت كليها maamul raala ahaw gidhaan waxay dheen waa kula jirnaa nin marabno adle nin noo hadda markii meeshaan imaadina waa ii kala baxeen waa ujeeda dhib ma lahan adiga waxa wanaagsan amarka maamulka uu soo bixiyey inaad diyaar u ahaato kursi walba
oo kollejka ku yaala wiilasha in konta kuraas looga gooyo ayaa lagu talagalay marka sidaa daraadeed haddii aad dood ka qabto adigoon banaanbax sameynno carruurta soo shirin waxaa rabaa maamulka inaad u tagto laakiin waxaa kasii wanaagsan inaad iska dhaafto maamulka hadalkiisa runtaa waay bes iga raalli noqon ku dheh anaa gefi ma oho khudbadayda leen ku ekaha naagahana niman haddii u baahan yihin anaanba ku daraa raalli ahaaw gabdha adinka waxaad rabtiin wiilasha cusub inaad la kulantiin soo sax maahana laakiin aniga ayaa ninkaga hormarayo midaaba teleefonkiisa gacanta iga saaray okay tartiib yaqays aniga ayaa nin xalinaya sawiradoodoo dhanna halkan ayay ku jiraan emailka 300 waaye website-kana 600 waaye yaa haddaba ogaada isku soo tuura lacagta maxaa meesha ka dhacayana horta ninkan araggiisa ma xuma sida shukulaatadii kale aad ayuu u macaan yahay qorshaha uu kuleejka u yimid waa 2 nooc inaan annaga ku dheelno ama inuu asaga nagu dheelo aniga gabdhaha yara istrukeyan waxba muxima laakiin naagtan ay fareeja la dhahayo damuu dhigta dugo dhiman bis igaarkeed camal waay waa istrukeyoysa iimaanka ilaahay ka siiyey subax wanaagsan macalin subax wanaagsan macalin war adduunya gabdoon inas yahay 7 jir waaye wiilaa imaadiyay maqashay rosetay afka marsohoysaa bilcaanta birkood ma shiixaayaan mudana waa ku salaamay adduunya gabdoonkan arka ninaa imaadile la maqli ajariidhanaa la soo qaaqaabi iimaanka allah ka siiyo kuwaana mudanaha maxaa daaray واو ويل فرتك حرم يا يمت كلاتك أكشن دي صحتها وقطر غير كلاتك دي تايو رواء أيان لين صباح الحين صور كنا لا تصي يقاب هانتيس هذا أيوب قروح بدنيا عادي ما هن كان ما حد يترين صح ما وحبا ما هن إن بحين كان أوكي معلم جيكي قبلها من معني وكلي سعدان مر معلم جيكي هدي اتيري معلم كان قبلها وخابي ليه أنا لكن كلي يا هاي قبلها ما لهم لي أقانو وكبقى يا مكان هو استاجو وحال ربا كلسوني إزقلي معلم جيكي يكون دعي وين محاسم يا معليشك وخابي ليه هنقول ده كلسوني بعضهم كسي ودعي وما سنت معلم أبد ما سنت mahadsanidin gabdho magacii waa kaarti krishna kusoo dhawo kuleejkeena mahadsanidin maanta maalinta jacaylka miyaa ubax ayaad gacanta ku wadaaye aragtida koowaad maxabo ayaad nagu reeday maxabada waxaa loogu talagalay dumarka haddii soo dhaweyn laga helayo waa wax wanaagsan anigana waan ku faraxsanahay iga guddoon mahadsanid dhararkaagana miisaankaaga 75 kiilo kalarka jecesha balaaga gabdhaha qurxan ubax waan u badiyaa gabdhaha noocee jeceshaan kuwa faashiyonka gabdhaha faashiyonka nooceed ka heshaan adiga manoo sheegi kartaa kuwa da'deeda gabar saxib ma leedahay maya saxab ayaan leeyahay jaceylna maya gabar aad ka hesho ma jirtaan maya haddaad heli weysan haddii aan heli waayo nolosha ayaan isdhaafinaa waa balan noloshaa nooga sheekaysay kulankaaga aad ayaa ugu faraxsanahay waan ku salaamay waan kaa qaaday anigu waan ku aqaanaa ma ogtahay anigu sidoo kale waan ku aqaanaa laakiin sidee gabar magaalada degan aniga aan aqoon u lahayn wayba yar tahay aniga markii uu samaa faraa xidhnaa ayaan laamiga kuga arkay sharciga waad dhowrtaa adiga aniga sawir ayaan kaa qaaday kadibna facebooka ayaan dhigay waad mahadsan tahay laakiin hal midaan raba inaan kuu sheego wiilka adigu guursanaba ma aha mid kuu qalma dadkoo dhan sidaas ayay dhahaan maxaa dhacay ma iska dhaartid maxaan sameeyahay duruuf ayaa jirto inaan ogolaado waan ku qasbanaa mana diidi kari haddii ogolaado waa dhib haddaan diidana wayba kasii daran tahay dhib malaha magacii waa kaarti krishna wax kale kugu taga fiirahan mahadsanid adigaa mudan kulanka koowaad ayaabad hadalkaada igu qancisay aadaad u mahadsan tahay sidoo kale mudane shil labaad ayaa magaalada ka dhacay
maalin cad ayaa dadka la dilaya xayawaanimada way ballaaratay maxaa kale keeshii walaalkiisa ayaa ka dambeeya adi ma caddayn kartaa maashaan laatay maxaa wax ugu qaweys ii sheegbe war dhegeysta hadal meeshaan looma baahna warbixintan dadka idin soo siiyey hal qof markhaati ha ii keeno waxaa idin tusaa wiil iyo walaalkiisa inaan xabsiga gudaha u dhigo haye yaa maanta xiisa ma jirta maa tiri seerabtiin idinka seewa waa igu joogjoogsoosiin madaxayga istaagoosin be maxalkiin kaartig kabadhi ayuu dheelay asxaab yaa qayna keena soo baxa kar kaartig maa kabadhi ii dheeloy haddana maanta jag iga dhaha oo kaali kharajo muhiim ay tahay in loo dhidhiilo haa laakiinse aniga adiga kuma jirna dheeshan ogow ya maalin jiki ciyaartan ciyaar rabo dhibaata ma iga maataan ila keliya ciyaar ka halkan dhib male abuu miixa oo maasantan diiq kaligiisa doora dhex ordaayo deg waa ku dhacaa nasiibkiisa isqabaa يا أخي استاذ قرآن يا أخي beella waaye be haddiiba gabdhihii nimanka ay wareeriyooyin dhulkani wad ay ku joojoogsooyin aniga waa fofooriya aan ku yidhi waa fofooriya waan ku salaamay waan kaa qaaday kaliya maxaa halkan ku fariisiyey aniga hal dhib ayaa haysto dhibkaas ayaan inta la fadhiya sidaas darteed waan fikirayaa hadda marka ii sheeg waaye walaalkaarti iyo asxaabtiisa aniga markaan gurigayga aadayo iyo markaan ka soo baxayaba iyaga ayaa i daba socdo teeda kale haddii aniga qof jidka socdo ila hadla xataa qofkaaseeti si xun ayay u garaacayaan dhibaatadaas ayaa aniga i haysta dadkaaseeti dad ay dhaafayaan ma lahan inaan meel aada xataa way ii uriyaan aniga cidna lamaba hadli karabo sida darteed iyaga ayaan uga cabsanayaa hay macalin jiki welwelka dhaafgalaan ku dhahay dadka اوكي ادين فسحينو هدران غلا غرتان اديسو هل مالين كليه دulqaad ay ku macalin jiki hawshan waxay ka dambayso way ku dhamaanaysaa qol free ay noqonaysaa waa ku bariya kaarti kaftanka naga dhaafno waryaa wadada noo baneey warqad socda adiga istaag ayaan ku dhahay
walaal waa ku salaamay walaalkayga yaraa waan kaa qaaday nolosheeda laba qof ayaan jeclaaday waa adiga iyo adeerkay adinka dartiinna si aad farxad u heshaan wax walba waan u samayn karaa laakiin adiga waxaan rabaa magaalada ka baashaal aqligaadana waa isticmaashaa war adiga intaad nooshaha walaalkaad magaaladan waa ku raaxaysanaa uma jeed siduu faraxsan jecel ayaa galay runta waa dhib ma lahan asigale hal mar ha guursado jecelka inta afku hayn waxa laga yaabaa in uu burburo taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso maxaa idinku dhacay aniga gabadha kaashaalaha ayaa idin tiri wejigiina muxuu sidan u yahay dhaawacni ayaa idin soo gaarsiiyey wardee haddii nala ogaado ununkoo dhan waa noloda la abaan ku leenahay war maxay tahay dhaawac wejigiina ku yaala ii sheega bal yaa idin geystay kan dartiisa noogu dhacday kan dartiisa ah jidka markaa soconin nin islaameesna u daadaansada beerkaana laga soo tuma galey camalana oo laxan jiriyey dooli haddii aad gambaleel qoorta u gelisaan oo mukulaal aad u dirtaan mukulaasha ii deedo waay aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso hay gabdho maxaad ugu dha halkaad u fadhisiin waxaad u egtihiin dad baashaalaya oo kale oo buug jecel akhrisanayo walaalkeeshuu ayaa walaalfishuu soo wacay waa ku salaam maanta aniga dib ayaan kugu soo laabtay runtii nafsakeeda adiga ayaa badbaadiyey maanta haddaan noolahayna adiga dartaada ayaa u noolahay marka waxaan kuu sheegaya maanta inaan kuu soo socdo waana kuu imaanaya aad iyo aadaana kuu waxaysay mar dhow isug nintaasoo keliya dhibaatada ma ninkii adig ku guursan lahay miyaad ka baqaysaa kale yaqaaniga nin tuuga miyaan guursadaa nafsadeedaba kuma aaminayo ninkaas maanta hadduu tuugaya waxaa laga yaaba marka uu ku guursado inuu iska daayo oo nin fiican u noqdo bal ka war markaas marka kaale aniga maad rabtaa inaan ninkaas nin fiican ka dhigana nafsadeeda qofkay rabta ma dooran qof walba dooq ayuu leeyahay balse dooqiisa maahan miduu helaayo waxaa laga yaabaa qofka qof usan rabin inuu helo aniga cabsi darteeda haddii aan ogolaan waxay kula tahay nafteeda inay ku faraxsan tahay ninkaas aniga ma rabo maxaad udiidaysaa nolol heer sare ay ku noolaan lahayd war nolol heer sare ma rabo aniga nolol farxad le ayaan rabaa aan ku noolaado rii habeen iyo runtaba midna lama qariyo dadkan hortooda ka caddeey aniga inaan ku jeclahay adigana aad i jeceshaa middaas inaad ku nabadgeshay ayaa laga yaabaa ogow xishali xageed ii wadaa adig ii sheeg xishali xageed ii wadaa xishali isdajeed xageed ii wadaa ii sheeg ilaadan loo adig halow idhageystadiyow dhammaantiin isku imaad waxaan rabaa dhegihina inaad i amaahaysaan aniga waad i taqaanaa magacaygu waa fishaali waxaanay dhalay gaashaanlaha gobolkaneeti waad ogtiin aniga waxaa laysiiyey keeshow adigana waad wada ogtiin aniga keeshow ma jecli waxaan u ogolaaday daruuf jirta awgeed laakiin aniga waxaan jeclahay kaartig aniga awal awood aan uga hortago ma haysan laakiin hadda waan haystaa kaartig aniga waan ku jeclahay waxaan rabaa inaan kula noolaado adiga ama ogolow ama ha ogolaan nafsadeeda adiga ayay ku rabtaa aad ayaan kuu jeclahay kaartig aniga waan ku jeclahay mana kaa dabaaraa nafsadeeda adigoo keliya ayay kuu baahan tahay kaartig go'aankana gacantaada ayuu ku jiraa kaartig inakaan walaalkaa ku wacay war ma jecli mana u tagayo u sheeg isaga jeclaa ama jeclaa ninkaas waxaas ma qoreen hay arrintaa maxaan ka dhahaa ii sheeg maxaan ka dhahaa maxaa la dhahaa waa gelaysaa beg iyo xawada ka dhaweey gabar diidan in la kaxeeyo haddii aad idinka xog ku kaxistaan waa calaamada ay burcada leeyihiin amaba lagu yaqaano war adiga yaa tahay magacaygu waa kaarti krishna labalabada aawadiin maahan midaan qaadanaya aniga hey annaga aqoon ma noo leedahay aqoon iska daaya aniga si fiican ayaa idin qaanaa balse ka waran gabar haddii wiil ay tiraahdo waan ku jeclahay wiilkaas hortiisa haddii aad ku kaxistaan wiilkaas maxay ka aaminaysaa inuu doqon yahay aniga waan ku qasbanahay marka kartideeda inaan idin tusay gabadhan inaan jeclahay waxay okaadiya fishaali dhegeyso jecelkaaga yuusan noqon mid aad ninkaas aniga igu reebaysid jecelkaaga ha noqdo midaad ku guulaystee run ahaantii markaad jecelkaaga ii sheegato anigana aad ayaan kaaga helay waana ku jeclaa fishaali fishaali jecelkaaga intuu ila jiro lagama yaabo aniga inaan guuldaraysto hey kan waa kii ina garaacay qof weyn wadkiisa wuu yaqaana haddii aan wejigiisa soo xirta xitaa aqoon ayaad ii leedaa sooma imaba ilaabin uryaha kolajkan gabdha masaakiin ayaa dhigto balse waxaan ku ilaa caga dhigo
lakeena walaal ninka waa kaasaa nafsikeedan badbaadino haa waaye ani adiga saaxiibbanahay halkaa maxaa ka qabanaysaa ninka raggaan looma baahno naagaan rabin inuu gursado ee waxaa loo baahan yahay qof asiga jecel inuu gursado haddii uu gursado qof aana jeclayn nolosheeda way baaba'day asigana sabab ah nolol fiican kama helaya gabadhaas noloshiisna way baaba'aysaa maalintaas marka aan ku badbaadinayn waxaan u baahnaa dadka adiga ku dili lahaa cabsida aad ka qabto in aan kaa baabi'iyo waaba ku raadinaya inaan adiga ku arko waana ku arkay ogow gabadha aad u socoto inaan aniga jeclahay biyo ay ku siiso nafsintaada ay ku badbaadinaysa miyuu jecel kugu gala adiga kaale fiishaalin waa xaggayga maxaad ka leedahay waryaa ciyaal yar maadaama aad sheegto waad iga badbaadaysaa adiga ordo iska tag haya walaal bas waa ku barya aniga khaladka aan galay waa ka soo naqday mar kale ma u dhaqanayo gabadhaasna maba raboba walaalkaani ma wuxuu ismooday magaalkan inuu asiga keliya u taliyo mise wuxuu ismooday limaxa magaalkan dadka qalad yar markay kaa galaan waad baabi'isaa idinkana qalad markaad gashaan waxaad u baahantay inay la cafiiso maa mala socotaa adiga walaalkaaga masaakiinta dhibaatada aad u geysteen weliba waxay isugu jiraan carruur iyo ciroole dhibaatada u geysteen neef ma ugu bedeli kartaa aad ii sheeg markaas waad iga badbaadaysaa inta ka sugaysa lagama yaabo adiga inaad iga badbaado masaakiinta dhibaatada u geysteen neef waa inaad siisaan markaas kadib ayaad iga badbaadaysaa awaar degdegayna soo gaaray ayaa waxay sheegayaan ninka kaysibaay la yidhaahdo la la'yahay ilaa iyo haddartana ma lagu sheegin war waxaa ugu dambaysay markii ay sagaalayeen dhalinyaro badan asagoo ku dhex jira ayaa la yidhi in meeshaas lagu waayey wixii warbixin kalena anaga soo gudbi doonaa rowtiliye ninka kaysibaay shal dagaalka u geliya lagu la'yahay waa la'yahay halo
walaalkay gareesaa loo xiray walaalkay ordii soo deji maxaa u taagantii walaalkay ii soo deji socdo tartiib soo deji saarigaas ka furmin saariley kac yaa saarigan ku xiro saan ku galay ninka aniga markii hore nolosheeda badbaadiya maanta waa kana sidii dumarkoo kale igu lebisa saariyo iyo xabe haloogaye waa ii dhamaatay sharafteeda waa u dhamaatay aga dhigo ninkan adinka dartiina leh wax muu samaynin anaka naftirkayna mustaqbalkayna evereska dhiga wariyaahoy anaka naftirkayna gareeskaas noo xiri inaan u xirna ballan ee waryaa kama dhaafeen caabi nimanka yaa bisaaleen حلم على حتى وليشان حلم على حلم على حلم على nolosheeda ku ciyaare reer biisaale anaa kaaga aaray ninkaas reer biisaale yaa la dhaafin ma ku xiri karo ninkaas saaridu ku haya walaalkay aniga ma dhaafayo qofka sidaan u galay waa ballan inaan asagana garees u xiro siduu walaalkay ugu xiray oo kale ma daynayo kaas mana iga badbaadayo waxaan isdhahay isaga ayaa gudoogaya maantana waa kanaa horteeda ayuu ku dhintay aniga mar walba waxaan jeclaa meedkeyga asiga inuu laakiin hadda waa kanaa meedkiisa ayaan gubaya aniga way dhamaatay karablaan ayaa igu dhacday maxaan sameeya aniga wiilkeyga waa kanaa meeshaan ayuu maasa uga watay reer biisaale inaad soo dillo waxgudoodaa soo kiciyeyna ma dhaafin dhowr mar ayaan kuu sheegay haddii adada suwar wanaagsan ku hadal aniga hadalkan hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso inta meedkan oo noo yaal looma baahno wax dhaqdhaqaaqa inaan samayno dhib walbo anaga noola geystayna waa u dul qaadanaynaa aniga hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso kadib ayaan tallaabo sharci ah ka qaadaynaa inta laga gaarayena maan anaga wax dhaqdhaqaaqa in aan samayno ninka wiilkeena sidaan u galayna lagama yaabo in uu naga badbaado kow ayaan ka siinaynaa waan dilaynaa halo walaal kumaa tahay adiga anigu waa neeb ah in lay weydiin meeshaan ka imaaday iyo qofkaan ahay waxaad weydiin kartaa oo keliya sababtaan walaalkaaga sidaan u yeelay iyo asbaabta keentay midaasoo keliya ayaa loo baahanya inaad iga waraysato aniga saqajaannimada walaalkaaga sameynaya ee gabdhaha magaalada ka joogi waayeen asaga waa dulli adigna waad ka sii daran tahay hadda ka hor waxaa jiri jireen 200 walaalo midna mid kale khalkan ku gal mid kale wuxuu jir wuu saxan yahay ilaa uu meedka walaalkiis ka arko markaas ayuu aqoonsaday walaalkiis inuu qaldanaa marka adigna muu casayata warkaadu wuu weyn yahay wejigaad mi horkeeni kartaa adiga midaas aabihi ayaa i baray aniga adiga waxaad iga badbaadaysaa mataqaanaa sida walaalkaa oo kale gabdhaha laamiyada kuma qasqashaadid haddii aad gabdhaha laamiyada ku qashaado waxaad ogaataa sida walaalkaa oo kale laamiga in aan ku dhigaayo mana iga badbaadaysid midaasna hore ayaan u ballan qaaday aniga halkan waxaan u imaaday libaxyada ismahadiyana inaan u dhammeeyo waxaad qalad gashay walaalkay korkiisa markii aad taabatay midaan hadeer waa boorsamiindo filimka waa uu kuu dhiman yahay walaalkaa kaa yaraa ani waan u degay balse asiga wuu ifahmi waayay saas darteed qadka ayuu ka baxay adiga haddaad ifahmi weysan waxaad ogaataa inaad qadka ka baxaysid adiga hadal walbo afkaaga ku soo dhacay waad ku hadashay laakiin aniga hadalkayga si fiican waa inaad u dhegaysataa aniga ballanta aan qaaday sidaydaba waan oofiyaa waxaad ii sugtaa oo keliya walaalkay meedkiisa intaan ka soo asturaayo kadib dunida meel walbo adiga aad kaga dhuumato waxaan ahay qofkii kaa soo saari lahaa mana laga yaabo in aad sinna iiga badbaaddo adiga baasriyo okay haddii sidaas tahay waxaan raadinaa meelaan kaaga dhunto uu horan googlaha weydiinaaba googlaha haddaan ka helo meelaan kaaga dhunto way ii fiicanta waa kaa dhuumanaya waan ka xumaa googlahane wuu isoo qaban laahe dhib ma laha ajensigaan tagaaya waxaan leeyahay tikid ii jara oo ninkaas aan kaga dhunto meel igeeyaan leeyahay inta ku sagaysana xafladiinna waad sii wadan kartaan qofka barnaamijyada noocan oo kale ku dhaqaaqa waa qof jecel ahaayo mideeda kaleeta adiga arday ayaa tahay maxay tahay sababta kugu kalaftikiisho inaad dishid aniga waxaan ku dhihi lahay barnaamijyadan faraha kala baxa mudana bilaash aad igu eedeynaysaa
kiishu baaya asaga ayaa gacantiis ku dilay dilalka noocaasoo kale maxkamadda waxay ku eedaysaa inuu ka dambeeyey qofka ku kallifay qofkaas gaashaal ma haddaad hurdada ka soo toostay markii asiga iyo walaalkiisa magaalada ay qasaayeen gabdhahan ay kursanayeen waayelada ay dilayeen adi xaggeed ku nooled ma hurdaysa xilligaas ii sheeg waxaan malaynaya haddaa soo nabdaaday marka hadda adiga amar diidda miyaad samaynaysaa madaxda dalka iyo mas-uuliyiinta haddii ay wax ka qaban waayeen dhibaatada lagu hayo shacabka marka ma diidantahay anigoo kale inaan dhalanayo oo waxna u qabanaa masaakiinta iyo shacabka weliba dad ayaan abaabulayaa oo weliba sideedoo kale ah masaakiinta iyo shacabka iyo waddankooda wax u qabanayo فيديو كبرية استاك فيديو هيدي اللي كبرية أنا خلينا نقول لما كفتنا استاك كن أما كنا فيديو سي أما كسينا فيديو يا أخي فيديو أنا إدامية كم كيجا يا أمريكا كيلو أم بنا يشيجيسا والله يا تادي أينا فيديو فيديو ما يا فيديو وكبرية جودا ودور سفلة وكبرية إيه أقولونه أوكي هذا يا نجادي لا جودا جعشان مراتن كأي كناشان ورناجين الدبد الجرو مو واحد أم لا سرق إنه قيميان بين أي وشيغان لكن بين له نقطة أنا جا أي الدبد تاني واحد هاي ينصو سارايا أنا قبلنا نيرانتين أيان اسمقيني قبلنا نقولنا هديتها خفك أولى أو شغلة وأذيقة لكن مسد كان قفك صقر حقبض ولا إن أوجدت أذيقة dib ma u wacda adreeskeeda ma ogaatana adreeskeeda muxuu yahay aniga ma aqaan meel ay degan tahay midda kale guri isoo bandhigta aniga ma ogolaada ma bilowday beenlow ma nagu cabaysaana naga tag taleefanka haddii uu ka maqan yahay kaartig waxaan u malaynaa inuu caajisay adig ma caajisana abaan ku baryaa ii aamin haddii aan ogaada gabadhaas waxay tahay oy gurigeen diyaar u noqoto qofta uuraysa anu sheegaya waa adiga ii aamin oo ku baryaa ii ogoloo taleefanka inaa isiis adagin balan waayo bal ii waran adiga ma israacsiisana haya qalbigaaga maxaa ku jira ii sheeg qalbigii adigoo keliya ku jiro adigna qaatiyan kaa taagana cid kale ma tabar u haayaabani haddaad aniga ii jeclaatid waa balan cimrigaaga inta ka dhiman farxad ayaad ku dhammaysanaysaa fiidyaa adiga kaarta miyaad jeceshahana hooyaday aabbahay anigoo yar ayay geeriyoodeen kadibna adeerkay ayaa isoo korsaday kaartina weligiis ima dareensiin inaan cidlo ahay laakiin shalay markuu wax walba ii sheegay ayaan ogaaday aniga inaan jecelahay weliba si xad dhaaf ah qalbigaygana oo boos weyn ku leeyahay jacaylka inuu wax jiro yahay qofkan ay wax jeclaan karto waxaan ku ogaaday kaarti markuu noloshayda ku soo biiray markaas ayaan wax walba ogaaday aniga indhahana way ii kala furmeen bravo عليك waan ku faraxsanahay maadaama gabadhayda ay wiil jeclaatay taasna waxay caddaynaysaa in nolosha ay qof la wadaagi rabto waan ku faraxsanahay gabadhayda dhegayso 4 beri kadib waa dhalashadaada markaas ayaan kaga faa'iidaysanaynaa oo wiilka runta loo sheegaya okay soo maaha maya aniga ma rabo arrimahayga kaarti in loo sheego waxaan rabaa aniga afkayga wax walba inaan uga sheegto buuggaana waa buuggii hooyaday xasuusteeda aniga wax walba waan jeclahay iyo hooyaday wax walba ay jecleed halkan ayay ku qoran yihiin mideeda kale aabbee iyo hooyaday meeshay isku guursadeen ayay waxay rajadeedu ahayd aniga inaan tago markaas kadibna anin ku guursado sur ayaan aadaya kaartina meeshaas ayaan jaceylkayga ugu sheeganaya aniga waan kugu raacsanahay ra'yigaaga gabadhayda meekab wixii shir aan leeyahay dhan jooji gabadhayda ayaan hindi u wadayaa sidee kaa noqotay ani markaan ciyaal mihi waxaan ahay qof weyn waana ismaarayn karaa adeer kaarta ayaan soo afduubaya kadibna waan soo noqonayaa sabdaa lama hana soo afduuba aroos ma jiro aroos ma jiro samaamaya soo socda yaaqi soo socda ka istaag meesha adi sidee maraykanka waaba ka tegaynaa meesha surweela ka hadlaysaa sunaami ayaa meesha ku soo socda sunaami
ها وكل شيء يا سيدات هاي اي صاحب سيدات هذه أنا سوي يا صباح الخير كانوا السلام لا بقول السلام كان محاوس عرفتنا سلام يا كسرتني يا فيديا ودكتور كيف تقول نوع نقرأ إنك حناقني runtii hadda ma xanaaqdana adiga كاتك فيديا ولا شيء هذا فيديا ولا شيء أنا يا كم هذا وحنا هاي فمي البويو هذه إنك تفتح حنا وماهن يا أخي iska dhaaf xanaaqee meesha haduu jiifalaa ka waran sunaamiga ka kor imaalaha saxda qiimeena aye بس نقدها يا أخي سي هاي هاي أوكي ما هو هاي حرش على طورة هاي مع حرش ما هاي محكو دعي محل فكرة سوالان ما إلى هذا الشيء أبا ولا لا ما كيش قبتها مكو كان عسي مكو عايشة هاي هو وريا هوي يري كالي حاجرة يها أو معناه أبو مدح الذهب خوت الذهب علوش الذهب قعمات الذهب كل هذا نوض الذهب وتايبه أنا من دافتينا وايد انتروغينا وايه والله دافع لكن حرش مدح على طورة هدي مدح أو قصة واسك بحسها حرش دو قصة ضحنا قفتها وانو تغيسها واي فانت يا ملينا نو كارتك فرحات اياد كسواتين هاو مالينا فرحات اسمها ايدين دميستيرا فرحات اسمها ايدين كبر برنا معايا الاسحابتي سو اركيا والله باشال يا باور وضوئي باشالو اسك جلادين كدن مضي ايسو جيسانايو واتوري واكاس هذاك هو صح يا هاي شيلينكي يا باهنا ولا الحرش مدح وحبك ما ودت كان باشال كل اسكين هاي ساس تاني هذا وضع يارينو سي شيلينكي يسو صار مسألة صدق سوالك تقول يا كالي ورسيكا يا سيو وريا جوجا كالي أديك وريا فوق أنا قلت أنا وربي إنها وضع عيارنا أديك تحليل معه سجلي وكبريا وكبريا بدك ما تسكت وكبريا وكبريا war aniga ciyaarta noocan oo kale waan soo ciyaartinta ida aniga ayaa ciyaar fiican kula ciyaaray haye ani ma ila ciyaaraysa aniga inaa la ciyaarta aniga bro laakiin waxa ku sheegay sharaftaada aan ku taaban inaan ku ciyaari doon dadka hortooda wiliba inta afkiin soo galina ka fiista ayaa laga rabay maxaad iga qaadi kartaa adiga aniga waxa igu balan dadkan hortooda inaan sharafta kaaga qaado وريا قفل بموبيل هستو وحروا إنا قفتان كتبتان وحاكو سميناي عنيقا أمريكي جوا وكبريا ولا لا وكبريا وكبريا maxaa dhacay kaartay aan ugu sheeg waxa dhacay video أنا أجيب دكتور لكن حلو لو ساعة إنا وحرك يا بابا إنا هذا هو كان نسيت كان اسكن بديو معنا gaasha la magaalada aan joogno waxa ka dhacay mar walba dil dhac kufsi boob waxaas dhacay dhan waxa u sababay keeshow iyo walaalkiisa iyagoo og in sharci uu ka jiro misla waxay aaminsan yihiin sharcigaba in uu jiibkooda ku jiro
anigana anigu midaas ka damqanaya ayaa keeshow waxaan u xiray garays si uu ceyboobo waayo dhibaato walba beledkan ka dhaca asiga ayaa sabab ah iyo walaalkiisa waxaad adiga samaysay qalad iyo sax wixii ma sheegi karo balse waxaan kuu sheegaa libiskan annaga in noola siiyey in aan xabadaha tuugada ee soo gamaan shafka aan u dhigan oo aan dadka difaacno laakiin labadaa nin dartooda sharafdha ayaa noo soo gaartay marka waxaan kaa codsanayaa dadkan inaan layso wax walbaba anaa xalad ku dhiganayo gaasha alla aniga midaas qalad ayaan u arkaa dadkaasoo kale haddii aan noqdo hub qaato magaaladan oo dhan wada qabuuro ayay wada noqonaysaa keliya waxaan kaa rabaa qaladkaan galay inqaabtiisa in aan maro diyaar ayaan u ahay wax adigu aqodo sharcigana kama weynin wax adigu waa martana waan qaadanayaa aniga ma laga yaaba nin daacada adigoo kale inaan xiro sharcigana dembi ka geli maayo iska baxa halkan maxaad igu yeertay war saaxiibta sidaad iga dhigta aniga dhan shoobin la-aan noqdo hadda shoobinaa rabaa miiraaxaysaane haa nakin nama waalka maxaa kugu dhacay war aniga ma waalane keesho si uga absata darteed sababtaad aniga ii isticmaasha ii sheeg midaas ayaa rabaa inaan ogaado war waan ku dilayaa ma ku cafinaya toosii dilno war adiga xooga dheerdheer u malay aniga hooyaday aabahay intaa kadib ayaan iskuulka iskaga jooga adiga darta ayaan u jooga adigana waad i qiyaantay ii sheeg sababtaad ii qiyaamaysa aniga fidiya baalan oo kale isku wala ani kadib ay dil war wajixmada maarta fidiya baalan inay kugu soo kor istaagsan maxaa ka qaldan adiga war maxaa kaa qaldana dilaada miya aniga gurigeena markaan ka soo baxay qudha nin walba wuxuu hamiyaa gabadhan quruxda badan siduu ku heli lahaa adigana jacaylkayga ayaad qoorta ka goysay waa ii sheeg aniga markaan halkaan imaanahay qorshe ayaan u imaaday laakiin waa xaqiiqa jacaylkaan aniga kuu qaad markaan ku arkay waa mid dhaba qof burcad ah misna gabar bii siinaysa markaan isku dhufto waxaan ogaaday inaad tahay gabadhii riyada qof qorshe u socday qofku warwar markuu arko wuu isku dhiibaa anigana adiga ayaan iskaga dhiibay hortaada naag ma jeclaano hay guriga hoo ku keena dekay inaan degmo biigihaas ka waran dhib ma laha marba gabadhan dunida ugu jeclaa haddii ay go'aansatay inay lamaano samaysato aniga run ahaantii wax dhibaan u arka malaha aad ayaan ugu faraxsanahay wiilkan wuxuu la yaaban yahay aabbiyo halka taagan oo saan u hadlaya laakiin aniga waxaan hooyo reer magaal ah gabadhayda waxay jeceshaanana waan la jeclahay marka gabadhayda adiga oo keliya ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi kara gabadhayda adigaa iska leh waryaada ninkaas waa in aad raadisaan magaaladoo dhanna cabsi inuu bannaanka uga soo baxa ayaan rabaa markuu soo baxana aniga ayaa ugaarsanaayo igama badbaadaayo taasi mid macquul noqonaysa maahan dadka mas-uulkuna nagama cabsanayaan cabsidoo idil way ka guurtay qof laga gabanaya ma leh annagaaba qalqiil ku jirnaa markaanaan ku dhahay dadka dhan manala shaqaynooyin hal habeen ayuu atoor ku noqday asaga walaan halkome hoos soo deg wax adag beh walaal ganesh mar hore ayaan dhaweeyey kaale soo dhawow soo fariisa see kaa noqotay gurigeena maa nagu soo dhaweynaysaa ninkan waxaan rabaa raashinka ugu qatarsan gurigeena in loo keeno sidaa maxaad igu fiirinaysaa waa aniga cadowgaaga walaalkaaga markaan u dhameeyey waxaan umalaynaya hawshii inay dhammaatay balse adiga markaan cadadgelintaada maqlay waxaan ogaaday hawsheeda inay qabiyad tahay sidaas in gurigaa u imaaday qaladka aad iga gelaysa adiga ilaa hadda ma ogid waad aragtay walaalkaaga falxumadaan u dilay isla sidaas ayaan ku dilaya haddii ad afkaad xiri weyso hadhown waxaa la wey doonaa qof adiga meydkaaga gubo amaba duuga carruur iyo cidoolana adiga ay kuga cayaaraan sidaad ugu cayaarta ay kuga cayaarayaan middaasaa iloobin aniga waxaan maqlay inaad ibaadi goobayso misna aad i raadinayso waxaad ilowsan tahay hal teleefon oo keliya haddii aad isoo dirreed aniga fadhigaa kuga imaan lahaa xitaa kafeeyaad cabayso free aan kaaga dhigi lahaa lacag kaama qaadi lahayn aniga calaajabag ayay noqolayd midda gabadhan ayaa kuu soo hartay waa indhahayga nuurkooda balana waxay ku qaaday nolosheeda inay ila qaybsato balanta ilaa ka oofin halkan ay joogaysaa wiilkayga adiga mid taha iloobin libaax inta uu ka fog yahay ayay fiirsada ku fiican tahay mar hadduu hoosta ka soo galo waxaad ogaataa libaaxaas in uu ku cunaayo aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusaysa waa run laakiin waxaa ka sii daran ninkii libaax inta u tagay madaxa ka salaaxa kadibna qoorta ka gooyey hadalkaaga ayaa hadda wadda igu furantay aniga midaasna ogow ayaan ku dhahay inaad heshiis rabto maxaad igu sheegi weyse waa wiil balaayo iska dhigaayo waxaad ogaataa
qofkii balaayo ku cayaara balaayada inay ku cayaarayso aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusayso qofkii bisada iyo qofkii libaxa taariikhda ayaa xusayso marka wakhtigeeda la gaaro walaal wadada muu galnaa muu dhammeynaa inta tacsida oo halkii ka dhammaanayso gacan yaa loo qaadin soo niima dhihin anaga maa gacan qaadin dad ayaan dareynaa ku dhan walaal ninkan kalsoonida guriga ku soo gala ayaan la baqayaa aniga maxaa yeelay ninkan waa nin khatar ah lugaha hubastooda ka soo ayaan ku dhiilahay isku badnaa walaal صاحب ماشي مر والبو اي فرحت معنا كل كدعده جوج وين نوبد شيخ مدن واعد سنه مد كل خاص ممكن مدن وانا عنيق مد معان بدل نص صار haddii aad ustahay jabiga bedel wuxuu ka wadaa ma taqaanaa wuxuu rabaa anaga jabigeena in uu bedelo laakiin anaga midaas kama yeelayno anaga jabigeena intaysan bedelin ka hor ayaan jabigiisa bedelaynaa asaga aniga ma dhihin waryahay nimankiina haddii ogoshiin aniga inaan hadlo waa hadlaa raalli aan ka andhaka jawigayga in la bedel diyaar aanu ahay laakiin waa inaad marka hore jawigiina aad bedeshaan goobtan waa inaad keentaan naago qurux badan haddii aad rag keentaan sidii warqadii oo kale ayaan u jeexayaa aniga ragga xaggeygana waxba kama ahan tolkaa tahay iisoo duceeya adin eri dhammaantiin aabi gabdhahoy quraxmaashin चांदी से मैं तुझको सवारूं Chapa chapa menya kuyamba ukumbe mampa ka uji sombe chapa chapa hi ambile enya kuyamba hi ukumbe mampa ka uji sombe jamuro jamala jambalula nasraminana na hisa turrijana ayl badana idageysa adiga
waxaa la gaaray waqtigii wiilkeena anaga aan u aari lahayn qoota ayaan ka soo gorinaa nakeen adinka kaartag ninkan anaga akhbaarta beenta waxa uu noogu soo diray waxa uu rabay ninka wiilkeena diray in uu halkan ka fakiyo laakiin anaga midaas kama yeelayna maantana waxaa ogaataa in aan kaartig dilayna cid bini aadan oo naga celin karta mayrata ma jirto ماذا تقول محايتري معنيه ورياهوي دتك أو بوتيسك عبسها أنيقا ميه لا أنكويري أنا عايزة وحن رلا وجي توجي أوكي ما بألا ويان قد براو ورياهوي بوتو واحدة ميسي دتك لك عبسها ما أنا مكا عبسها إسكين ورياهوي أنا من عبسها ميه دلاشي لو على جوغا دود لباحن كدنجيجا ورياهوي أنا مكولة دقالة ماي أذيقا ننفع حاجة كولة دقالة معني وكاير يا كارتيك adeer 13 maalmood ayaan aniga iscelcelinayay ugaarta aan gaadgaadayna horteeda ayay taagan tahay waa maalintii ugu dambaysay taasiida walaalkaa meesheed masaakiinta aad raashinka siiled ma waxaad halkan u timaaday inaad dagaal iyo fooda abaabusho 10 qofood oo adiga aad soo dirtay haddii ay feri ugu dhuftaan aniga midas waxba uma arka laakiin hal feri aan ku dhufto 10kooda haddii ciidda ka hoos mari waayaan aniga ayaa ku imaanaya gacantaada weliba sidaa doonta igu inqaab beelo waa nin ragga ninka sidaan u hadlay haddii aad dagaal u imaaday yaad u xeeran tahay gacmo furan ku soo dhawow aniga hortaada ayaan taaganaa soo soco hadal badan han ma buuxsha ayaan ku dhahay aniga ayaa ku tusaay waxa aad tahay meeshan ayaana kugu jarjarayaa iska kaydhiya ayaan ku dhahay cid kaloo kula dagaalamaysa malaha adiga markaad walaalkay gacan u qaadaysay soo ma ogeen marka aniga gacantayda aad soo gasho in aadan iga badbaadeen war dadkoo dhan haddii ay isku yimaadaan cid iga kaa badbaadin karta ma jirto iga kaana gabarta tan soo ma ahan gabadhii aad rabtay inaad guursato hortaada ayaan baasiin intaan ku bilbada dab qabadsiinayaa haddii aad iga badbaadin karto kaana basiinka ku suba ayaan idhaa basiinka walaal ku suba si fiican u daawo adigii iska daaya aabbaha xataa ma badbaadin kara ayaan ku soo istaag aniga anaa la siinayo
saartay kulanimo ma bas haka cabsan ma iska saar walaal wax ma ku gaaray dhammaantoodii soo aruuriya soo socda war soo socda haye wiilyahow markaan kaa diidayay dadkan arrimahooda inaad faraha la gasho sidan ayaan kuu diidayay maxaa yeelay waqti fiican ayaad akhbaartooda soo gaarsiisay mooye saacaddan way kuma bixin lahaayeen hadda gacanteeda ayay soo galeen taariikhdan xusi doonta mar dhow ayaga way u dhammaatee gaashaanle bistoola soo qaadanaysa annagaan ugu kor jaranaysa waxaad ogaataa adigana taariikhda in ay wax ka qorayso xaafadda awjad annaga ayaa u tirinay yaa way cidda gacan noo qaadan karta car waa kaas annaga qof soo baxo gobolkan dadka degan niyadda ayagoo ka jaban ninkan ayaa u imaada kalgacayl buuxa ayuu siiyey asagana wuxuu mudan yahay kalgacaylkiisa in wanaag loogu bedelo akhbaar farxad leh ayaan idiin hayaa maxaa yeele ninkii magaalada qasi jiray maanta gacanteena ayuu ku jiraa sidaad doontaanna waad ka yeelan kartaan fasaxaad u tihiin qofkii dhibaato badan geystaa ogaada mar inay bulshada ku kacayaan oo qoortiisa ay qac ka yersiinayaan hadalta maxaa samaynaynaa waa isguursanaynaa no waxgarad ayaa tahay guurka wax ka diyaarino okay marka cunugaan dhalano